بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد waxaan rabaa halkan aan ku duubo muuqaal yar kaasoo ku saabsan maadada chemistry-ga khaasatan fasalka form 1 hore waxaan usoo qaadanay dhowr cashir oo chemistry kuwaasoo ku saabsan fasalka form 1 insha Allah maantana waxaan qaadanaynaa cashir ah classification of matter waa mid ka mid ah cashirada lagu qaato fasalka form 1 khaasatan manhajkan cusub ee hadda dhawaan ay soo diyaarisay dowladda marka waxaan rajaynayaa in aad loo dhageysto ardayda insha Allah si fiican uga faa'iideystaan si fiican u dhageystaan mid kale haddii muuqaalkan uu soo gaaro share gareey walaalaha kale uga faa'iideey haddii aad ka faa'iideysatay si walaalaha kale ayagana sidoo kale uga faa'iideystaan marka waxaan rajaynayaa in aad loo dhageysto aan hor u socono waxaan ka hadlaynaa waa sida hadda aan sheegnay classification of matter ablaynta walaxda qaasatan waxaan ka hadli doonaa marka astaamaha ay leedahay walaxda marka laga hadlayo astaamaha ay leedahay walaxda laba qayb ayaa loo qaybiyaa physical properties iyo chemical properties astaan duleed iyo astaan kiimikeed physical properties waa astaan duleed chemical properties waa astaan kiimikeed labadaas qayb ayaa loo qaybiyaa marka labadana waxa u dhaxayso farqi weyn ayaa u dhaxeeyo marka laga hadlayo physical waa astaanta walaxda ee muuqaalkeeda kore ma qusayso waxyaabaha ay ka samaysan tahay walaxda kaliya physical wuxuu quseeyaa walaxda muuqaalkeedii kore sida kalarkeedii sizekeedii cabirkeedii qaabkeedii dhadhankeedii kaliya muuqaal kore ayuu quseeyaa physical properties waa astaan duleed midda kale waa chemical properties waa astaan kiimikeed ayada waxay qusaysaa waxyaabaha ay ka samaysan tahay walaxdaas waxyaabaha ay ka samaysan tahay walaxda ay chemical qusaysaa su'aal ma soo qaadan watarka biyaha marka laga hadlayo physical aan daa u fiirino dareer waaye xaaladoodii muuqaal kor waa dareer physical waaye haddii dhalankoodii uu macaan yahay physical ayaan u fiirinay waxaa kaloo oo physical ah cufkoodii intay la eg yihiin haddaan fiirino garaam ahaan haddaan u cabirno ama litir aan haddaan u cabirno intaba waxay noqonaysaa physical properties laakiin haddii aan eegno waxay ka samaysan tahay oxygen iyo hydrogen marka waxaan leenahay waa chemical properties marka insha Allah labadooda ay faahfaahsan wayno imaanayaan physical properties astaan duleedka is a characteristics waa astaamo of matter taasoo ay leedahay walaxda that is not associated taasoo aan la xiriirin with a change isbedelka in its chemical composition isbedel kiimikeedka ku dhaca walaxda ma qusayso physical properties astaan duleedku is a characteristics of matter waa astaamaha ay leedahay walaxda that is not associated taasoo aan la xiriirin with a change isbedelka ku dhaca in its chemical composition waxyaabaha kiimikeed ee walaxdaas ka samaysan tahay compositionka ee walaxda ka samaysan tahay ma qusayso composition waxaa la waxyaabaha kiimikeed ay ka samaysan tahay these properties astaamahan include waxay iskugu jiraan appearance muuqaalka kore texture sidoo kale waa texture wuxuu la mid yahay waxaa loo yaqaanaa surface-ka kore ee walaxda qaabku yahay dhadhankiisa loo fiirin karaa cabirka loo fiirinaa intaba waxaa loo yaqaanaa texture kalarka loo fiirinayaa kalar ahaan shayga suu yahay kalarkiisa adar ayaa loo fiirinaa urinta melting point dhalaalida boiling point karkarida density cufka solubility milimida and others iyo kuwa la mid ah intaan haddeer aan soo sheegay dhammaantoodii waxay tusaale u yihiin physical properties maxaa yeelay keliya waxay quseeyaan muuqaalka kore dhadhanka muuqaal kore ayuu quseeyaa kalarka waa muuqaalka kore melting point sidoo kale waxaa waaye karkarida waaye ama dhalaalida aan dheedan muuqaal kore waaye boiling point sidoo kale density sidoo kale solubility oo ah milimida intaba waxay tusaale u yihiin marka physical properties and there are two kind of physical properties waxaa jirto laba nooc oo physical properties oo kala ah intensive properties and extensive properties labadoodu marka macna ay leeyihiin intensive properties marka laga hadlayo ayadoo ma la xiriira ama ma ku tiirsana shayga xaddiga uu ka kooban yahay xaddiga shayga uu ka kooban yahay amountiga shayga uu yahay ma la xiriirto laakiin extensive marka laga hadlayo waxay la xiriirtaa
xaddiga shayga uu ka kooban yahay. Intensity marka laga hadlayo, these are physical properties, waa astaan fiisikeed which do not depend, taasoo aan ku tiirsaneen on the amount xaddiga of substance present, xaddiga walaxda ku dhex jirto. tusaale walaxdaasi aan ka hadlayno wax ku dhex jiro ma qusayso ayada. haddii laga hadlayo walaxdaas haddii ku jiraan tusaale sokor ayaa ku jirto, sokortaas cufkeedii ma qusayso, inta cuf ay tahay ama inta garaam ay tahay ma qusayso. xaddiga amountiga ma qusayso marka laga hadlayo intensiveka. xaddiga waxaa qusaysa extensive. Intensive properties, these are physical properties, waa astaan duleed which do not depend, taasoo aan la xiriirin on the amount of substance, xaddiga walaxda present ee ku dhex jira. tusaale ayuu soo qaatay, examples ayuu soo qaatay intensive properties. Intensive properties marka laga hadlayo waxaa loo fiiriyaa kalarka loo fiiriyaa, kalarka ayaa loo fiiriyaa. tusaale wuxuu leeyahay kalarku soo qaatay, ilaan kalarka xaddi ma ahan, intuu ka kooban yahay ma ahan. kalarka marka laga hadlayo wuxuu soo qaatay marka aluminium metal isgaray, birtan loo yaqaan aluminium isgaray waa mid boorboor. garay waxa waa midabka cadaanka iyo madowga isku dhafan ayaa waxaa loo kasaa garay. Testing marka laga hadlayo isna wuxuu quseeyaa intensive ayuu quseeyaa, waayo test marka laga hadlayo xaddi ma ahan, inta xaddi uu la egyahay ma ahan, marka amount ma ahan. test waa dhadhan. wuxuu tusaale soo qaatay marka lemon juice is sour, cabitaankan liinta is sour waa mid oo dhanaan ah. wuxuu kaloo intensive soo qaatay melting point, dhalaalidda. aluminium has melting point, waxay leedahay dhalaalid oo ah 620 mid gaarayso. waxay gaaraysaa markii dhalaalayso hadii 660 haday gaarto aluminiumka oo celsius haday gaarto way dhalaalaysaa. haddii digriga oo aluminiumka uu soo gaaro melting wuxuu sameynayaa melting point, waa hadduu soo gaaro 660. boiling point sidoo kale karkarid waa, karkaridda iyadana waxay qusaysaa intensive ayay qusaysaa. butter has boiling point of 100 degree, wuxuu dhaha watarka wuxuu leeyahay biyaha waxay leeyihiin karkarid oo ah 100 degree. hadday 100 degree gaaran biyaha waxay noqonayaan hawa ay isku bedelayaan. density cufka marka laga hadlayo sidoo kale iyadana waxay qusaysaa intensive properties. water has density, biyaha waxay leeyihiin cuf gaaraya 1 gram per millimeter. luster, shayga ifka uu bixinayo iftiinkiisa. metal are lustrous, birtu waa mid oo ifayso shine ah. marka inta haddeer aan kasoo hadalnay dhammaan ma qusayaan, xaddi ma qusayaan. marka kalarka testiga oo dhadhanka melting point, dhalaalidda boiling point oo karkaridda, density cufka, luster iyo shayga kan ifka uu bixinayo intaba waxaa weeye intensive properties. tan labaad waa extensive properties. extensive properties iyadu waxay qusaysaa xaddiga shayga uu ka kooban yahay, walaxda waxay ka kooban tahay wax ku dhex jiro xaddigeedii ay qusaysaa. these are physical properties, tani waa astaan duleed that depend, taasoo ku tiirsan on the amount xaddiga of substance present, xaddiga walaxda ku dhex jirto ayay ku tiirsan tahay. tusaale sokor ku dhex jirto meeqa ofkeedii waa imisa, waa 10 gram. marka tani waxay qusaysaa xaddiga ay qusaysaa, laakiin haddii intensive xaddiga ma qusayso iyada. waxaan soo sheegnay physical properties laba qayb ayaa loo qeybiyaa. intensive oo ah mid aan xaddiga qusaynin, kaliya waxay qusaysaa dhadhanka iyo kalarka iyo wixii mid ay qusaysaa. extensive propertiesna waxay qusaysaa xaddiga. example wuxuu soo qaatay marka of extensive waxaa include waxay isugu jiraan mass cufka, volume mugga, length firarka, heat capacity iyo xaddiga kulka. intaba waxay qusayaan extensive properties. physical change waxaa kaloo jira wax loo yaqaan physical change iyo chemical change. physical change iyo chemical change waxay kala yihiin. physical change marka laga hadlayo waa isbedel physical, walaxda haddii muuqaalkeeda kor uu sameeyo isbedel ama lagu sameeyo isbedelkaas waxaa loo yaqaanaa physical change. tusaale walaxdaas waxay ahayd dareeri waxaa laga dhigay adke. waxaan leenahay isbedelkaas la sameeyo waa physical change, isbedel physical. walaxda isbedelkaas ku dhacay ma qusayso, waxay ka samaysan tahay ma qusayso. tusaale haddaan usoo qaadano biyaha waxay ka samaysan yihiin hydrogen iyo oxygen. marka physical change la sameynayo hydrogentaas iyo oxygentaas wax iskama bedelayaan, labada hydrogen iyo halka oxygen ay ahaanaysaa.
kaliya maxaa isbedelaya biyaha tusaale haday dareer ahaayeen waxaa laga dhigi karaa adkaa laga dhigi karaa ama waxaa laga dhigi karaa neef ayaa laga dhigi karaa. marka dhulada neef hadii laga dhigo haddana dib waxaa looga soo bedeli karaa dareere. marka taasi ma qusayso compositionka ama waxyaabaha walaxda ay ka samaysan tahay, kaliya waxay qusaysaa tani muuqaalka kore ama stateka xaaladda shayga uu yahay. mid kale physicalka waa reversible, dib waa loo soo celin karaa, laakiin chemicalka dib looma soo celin karo. and physical change is a change waa isbedel in the state kaasoo ku dhaca xaaladda or properties of matter ama astaanta walaxda without changing iyadoo aan isbedelaynin its chemical composition waxyaabaha kiimikeed ay ka samaysan tahay. biyaha ahaayeen waxaa ku sameyn physical change, waxyaabaha physikeed iyo biyaha ka samaysan yihiin isbedelayaan. watarka wuxuu ka samaysan yahay hydrogen iyo oxygen. haddii physical change aan sameyno weli waxay ahaanayaan hydrogen iyo oxygen. example wuxuu soo qaatay marka changes are melting. physical changes waxaa kamid ah marka are melting. tusaale shay ayaa waxaan ku sameynaa waa dhalaalinay, baraf uu ahaa barafka waa dhalaalinay waxaan ka dhignay biyo. dib waxaan u awoodnaa in biyahaas aan baraf ka dhigno. marka meltingkaas aan sameynay ama dhalaalintaas la sameeyey waa physical change, maxaa yeelay lama bedelin maadada waxyaaba ay ka samaysan tahay. freezing ayaa kamid ah shayga markii la qaboojiyo biyaha tusaale haddaan qaboojin aan ka dhigno baraf waxaan awoodnaa inaan dib usoo celino. marka waxyaaba compositionka ay ka samaysan tahay lama bedelin, kaliya waxaa la bedelay xaalad ay ku sugan tahay freezing. or changing size or shape ama in la bedelaa shayga cabirkiisa ama shape qaabkiisa, intaba marka waxa waaye physical change isbedel kiimikeed. physical change akar wuxuu dhacayaa one goortii the appearance muuqaalka of substance walaxda changes uu isbedelo. kaliya wuxuu dhacayaa one goortii the appearance muuqaalka of substance walaxda changes uu isbedelo. but chemically the substance is same. but laakiin chemically si kiimikeed ahaan the substance walaxda is same waa isku mid, wax iska bedelin. physical change isbedel kiimikeedka is reversible change waa mid dib loo soo celin karo. tusaale barafkii biyaan ka dhignay waxaan awoodnaa inaan biyo usoo celino, biyaan baraf ka dhignay waxaan awoodnaa inaan kan usoo celino biyo. marka waa reversible waa mid dib loo soo celin karo. that does not involve taasoo aan ku lug lahayn changes in matters isbedelka walaxda chemical makeup waxyaabaha kiimikeed ay ka samaysan tahay or chemical properties ama astaanta kiimikeed ay leedahay. example waxaa kamid ah marka oo physical change horan waa soo sheegnay common change state xaaladaha markay isbedelayaan of matter walaxda xaaladaheeda markay isbedelayaan. tusaale solid laga dhigay liquid ama liquid uu ahay gaasa laga dhigay ama gaas uu ah waxaa laga dhigay solid. marka xaaladaha walaxda ay leedahay marka lagu sameynayo change lagu sameynayo isbedel lagu sameynayo waxay tusaale u yihiin physical change isbedel kiimikeedka. and chemical change isbedel kiimikeed is a change waa isbedel in which the identity and the composition shayga identigiisa wuxuu ka samaysan yahay shayga wuxuu yahay compositionka uu ka samaysan yahay ayaa isbedela. wuxuu kaloo dhaa marka is a change waa isbedel in which identity and the composition waxyaaba identiga iyo compositionka ama waxyaabaha ay ka samaysan tahay walaxda of substance walaxda change ayaa isbedela. and the producers waxay soo saaraan new substance waxyaaba kale cusub ay soo saaraan. watarka uu ahay hydrogen wuxuu ka koobnaa iyo oxygen markuu dhacay chemical change hydrogen iyo oxygen waa la bedelaa waxaa laga dhigaa wax kale, kaas waxaa loo yaqaan marka chemical change. dibna looma soo celin karo. chemical change is a change in which the identity and the composition of the substance change waxaa isbedela waxyaabaha ay ka samaysan tahay walaxda and produce waxay soo saartaa new substance waxyaaba cusub ama walax cusub ay soo saartaa. example of chemical change waxaa kamid ah burning wood in la guba alwaxda hadii la gubo dib looma soo celin karo waa chemical change. ilan shayga waxay ka samaysanayaan ayaa la bedela. storing milk caanaha inay isbedelaan. digesting food hadii maxaa la shiido cuntada shiidida cuntada sidoo kale lama soo celin karo eegana waxaa la bedelay waxyaaba make up ay ka samaysanayaan ayaa la bedela marka lama soo celin karo. cooking an egg iyo in la kariyo ukunta. rusting of iron iyo in laga dhigo mirir baasha loo yaqaan birta ironta. intaba marka waxay tusaale u yihiin chemical change. guud ahaan haddaan kusoo celiyo physical change waa astaan ama waxaa isbedel kiimikeed waa isbedel kiimikeed ma qusayso waxyaabaha maadada ay ka samaysan tahay, kaliya waxay qusaysaa muuqaalka kore ee maadada. chemical change
waxay qusaysaa waxyaabaha maadada x meesha tahay. marka waxaan rajaynayaa in aad loo fahmay. halkaas inta muuqaalkaygu soo gabagabeynayaa. kanaalkaagana anaa iskale subscribe saar. waan kaaga mahadcelinayaa dhegeysigaagii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.